Raxmaan Raxiim waa Somali News oo wax waliba idiin soo gudbiyay. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa sawiradii Allah u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi oo magaalada Muqdisho laga soo dejiyay. Sawiradii ugu dambeeyay ee laga qaaday iyo waliba janaasada oo lagula tukaday garoonka Aadan Cadde. Waxaana ka qayb galay aaskiisa madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday Farmaajo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyaha aqalka sare iyo golaha shacabka iyo mas'uuliyiin kale. Gebi ahaanba waxaa xiran wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo loo aaneynayo aaska loo sameynayo madaxweyne Cali Mahdi. Madaxweyne Cali Mahdi ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka Nairobi, gaar ahaan caasimadiisa dalka Kenya, gaar ahaan caasimadiisa Nairobi. Hilmaami hadal kuma jiree. Alla waxaynu uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo una naxariisto